buugan wuxuu aad haddana u sii caawinayaa bisha Ramadaan dadka inay iscafiyaan inay caloosh isku furaan inay laabta isku furaan inay walaaloobaan inay maxaan ku raashay iskaalmeeyaan wuxuu door weyn buu ka ciyaarayaa buuga wuxuu ka kooban yahay 5 cutub 120 bug weeyaan wuxuu ka kooban yahay qoraallo يعني مهم u ah cafiska waxa kamida cafiska maxaan ku raashay fadliga cafiska waxa kamida iscafinta dadka muslimiinta waxa kamida cafinta xataa dadka gaalada ah yani qofka gaal xaq ugu laha jiro waxa kamida cafiska dariska waxa kamida cafiska saaxiibada cafiska qoyska oo lamaanaha isqaba xataa yani maadaama burburkii qoyska uu batay inta waxa ka sii mida dad Soomaaliya oo dad cafiyay qisooyin ay ku dhaceen qisooyinkii yani ku dhacay ambassador Maxamed Cali America qisadiisa ku jirta yar kale oo Cabdirasaaq lira gacmaha ka go'an oo dad eedadiisa yani ka go'ay oo cafiyay kamida dad badan oo Soomaali ilaa 6 qof oo hadda aan helnay noona ogolaaday inaan wax ka qorno oo wax ka qornay ayaa jira qisada aadka ii soo jiidatay waxay ahayd yar lira Farxaan oo xariyaha qaxootiga dhadhaab ay ku gubtay xaaskiisa oo aad yani asagoo qisada yani way kala xanuun badan tahay asagoo biyo u doonay oo biyo u soo arooraya oo biyihii ay ku noolaan lahayd meel qaxooti maadaama ay tahay aroor ku maqan ayadana waxay karkarinaysay biyihii ay ku gubi lahayd ee dabka aa u sii saarnaa markii uu yimid oo uu seexday xogaa iskala bixiyay oo يعني دالكي dhididkii haka jabo islaay ayay biyo kulul ku rogtay marka aad u dhibaatooday laakiin waxa aad ii soo jiidatay hadana sida geesinimada leh asoo wali dhaawici aan ka biskoon uu u cafiyay hadana xaaskiisii waliba uu sii muujiyay inuu xataa hadii uusan cabsi kale aysan ay dhib kale keenin inuu la sii noolaan karo qisaas aad iigu cajiib badnaa runtii maanta wax Soomaali ay ku badbaadin karto ay ku midoobi karto ay ku noolaan karto dhan walba waa cafiska sababtoo ah dib walbo iimaanaya hadda xilli doorasho lagu jiraa hadii xilliga doorashada cafis iyo tasaamux iyo isgaraqabsi iyo qof walba qofka kale inuu yani uu saamaxo hadaan la helin oo la iscafinin wax soconay ma leh Soomaali maanta waxaan leeyahay shayga koowaad ay u baahan tahay waa cafis shayga labaad ay u baahan tahay waa cafis shayga saddexaad ay u baahan tahay waa cafis